kulan u dhaxeeyay hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan isla markaana lagu xoojinayay laguna dardar gelinayay hawlaha ammaanka ayaa waxa uu ka qabsamay magaalada Jigjiga ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa isaguna waxa uu maanta booqasho rasmi ku tagay deegaanka galbeedka Itoobiya ee Omo mudanayaasha labada aqal baarlamaan ee dalkaasi Soomaaliya waxa ay maanta cod aqlabiyada ku meelmariyeen ama si ay ku ansixiyeen afarta cutub ee ugu horeeya dastuurka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتيها بونداود يا لهالتينبا halkani waa xarunta dhexe telefishinka shaqaale magaalada Jigjiga kuna soo dhawaada war wixii naga soo gaadhay guud ahaan caalamka iyo dhulka Soomaalida oo aan habeennimadan caawa idin la socodsiin doono anigu Cabdiraxmaan Axmed Urmaala aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu maanta booqasho rasmi ku tagay deegaanka Omo ee galbeedka Itoobiya haddaba Cabdixakiin Rijal ayaa soo mariyay safarka ra'iisul wasaaraha waxaana uu inooga diyaariyay warbixintani ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa xaqiijiyay in Itoobiya ka go'an tahay in ay didibada u taagto xal horumarineed oo dhameystiran ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo maanta booqday aagga galbeedka Omo waxa uu muujiyay in uu ku faraxsan yahay booqashada goobtani isaga oo qormo dheer oo faahfaahsan ku soo qoray boggiisa baraha bulshada ee Facebook waxa kale oo uu sheegay in goobtaasi ay ka buuxaan bilic dabiici ah iyo hanti la heli karo ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay inay tahay deegaan wax weyn ka tari doona horumarka Itoobiya oo taageero horumarineed oo ku habboon laga helo iyo jawi nabadeed waxa uu shacabka deegaankaasi u xaqiijiyay in kasta oo ay waqti qaadanayso in la daboolo dhammaan baahiyaha horumarineed haddana ay Itoobiya ka go'an tahay inay didibada u taagto xalka horumarineed oo dhameystiran isla markaana lagu buuxinayo baahiyaha ka maqan aaga Omo booqashada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu ku tagay deegaanka galbeedka Omo ee Itoobiya ayaa ahaa mid barbilow ah wadahadaladii socday toddobaadyadii la soo dhaafay sida ay sheegayaan wararka laga helayo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaana intii uu booqashada halkaasi ku joogay waxa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ra'iisul wasaaraha ayaana soo indheeyay goobo kala duwan oo ka mid ah goobaha dalxiiska ee aagaas ku yaala iyo goobaha u baahan horumarinta waarta ee u baahan in gacan laga siiyo deegaankaasi Omo ee galbeedka Itoobiya kulan u dhaxeeyay hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka qabsamay magaalada Jigjiga ayaa waxa looga gol lahaa sidii loo xoojin lahaa hawlaha ammaanka Cabdixakiin Rijal ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya kulan ay ujeedadiisu ahayd dardargelinta hawlaha amniga iyo u diyaargarowga ciidda ayaa ka qabsamay madasha shirarka ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan ee magaalada Jigjiga kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha booliska oo ugu horeeyo komishineer ku-xigeenka komishinka booliska deegaanka Soomaalida Radaad komishineer Cali Cabdi Jabaar ku-xigeenka maayarka maamulka magaalada Jigjiga Mudane Khadar Bulbul saraakiisha booliska iyo qaybaha kala duwan ee maamulka xaafadaha magaalada Jigjiga ay ka kooban tahay kulankan ayaa intii uu socday waxa lagu qiimeeyay sida uu sheegay komishineer ku-xigeenka komishinka booliska deegaanka Soomaalida Radaad komishineer Cali Cabdi Jabaar caqabadaha shaqada meelaha ay golgololadu ka jiraan sidii loo sixi lahaa isla markaana loo baahan yahay wixii kale ee sixitaan u baahan in la dardargeliyo maadaama uu amnigu gundhig u yahay wax walba kulankan ayaana ujeedadiisu ahayd sidii la iskula garfayn lahaa isla markaana diyaargarow ballaaran loogu samayn lahaa maalmaha ciidul fidriga ee inagu soo foodale oo ay maalmo kooban oo kaliya ka dhiman tahay waxaana ugu dambeyn kulankani la iskula qaatay laguna gorfeeyay sidii meel looga soo wada jeedsan lahaa adkeynta nabadgelyada iyo ammaanka caasimadda iyo sidoo kale u diyaargarowga maalmaha ciidda ka qayb qaadashada waxyaabaha caqabada ku keeni kara bulshada iyo magaaladaba sidii looga wada hortagi lahaa waa tahay daawadayaal waxa inoo soo socda warar kale oo ka imanaya dhulka Soomaalida iyo guud ahaan caalamka balse hadda Muqdisho mudanayaasha labada aqal baarlamaan ee Soomaaliya ayaa waxay maanta ansixiyeen ama si cod aqlabiyad ay ku meelmariyeen afarta cutub ee ugu horeeya dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kalfadhigaas oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxa uu dhacay sidani ma sha Allah ilabaan diiday ma jiro ilabaan ka aamusan ma jiro
laba boqol laba iyo toban lana aqbal ku odaysay waana ansax sidaa daraadeed dastuurkii waa ansax maasha allah xildhibaanada sharafta leh sidii marka hore baan u sheegnay maanta odaynta hore waa ka duwan tahay sida sharcigan uu qabo dastuurkeena farayaan u odaynaynaa labada aqal waa kala odaynayaan waxaan ku hormaraynaa aqalka sare adduunyada waxa la yiraahdaa aqalka sare dad aqalka odayaasha loo yaqaan meelaha qaarkood maadaama odayaashan ugu waaweyn ay ka mid yihiin aqalka sare aan ku hormaraynaa aqalka sare dhamaantiin isku diyaar garooba laakiin waxaan codsanaynaa sanatarada aqalka sare inay diyaar garoobaan howlwadeennadana diyaar ha noqdeen howlwadeennada diyaar ha noqdeen sanatarada sharafta leh afartii cutub oo sidii haddii guddiga soo jeediyeen intii guddiga soo jeediyeen laga reebay inta kale sanatarada ogol gacanta ha u taagan si fiican ha loo tiriyo xildhibaanada sharafta leh gacantiin ha taagnaato dejiya inta diiday oo aqalka sare sanatarada qofkii xildhibaan diiday hadduu jiro intii diiday okay yaa ka aamusay sanatarada aqalka sare yaa ka aamusay maasha allah hal is dhegeysto sanatarada iyo xildhibaanada kulli labada aqal si fiican ha loo dhegeysto walaalayaal natiijadii aan ku dhawaaqaynaa koorumka golaha aqalka sare 42 xildhibaan ayaa soo xaadirtay fadhida 42diiba waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa ansax dhinacoodii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed si fiican ha loo dhageysto buuqna ha la yareeyo 40 cutub oo laga reebay intii guddiga soo jeediyeen xildhibaanada golaha shacabka inta ogol gacanta ha taagan هل تريو سفي عن هلا تريو وبعدين إذا كذا لحظة هل استاجو دجيا يا دي اللي بان دي ده دوجرو سفي عن هلا فيريو يا دي أوكي يا كاموسي ما شاء الله إلا بأنا ذا لبضع أقل أنا سدقيسن وإذن قادوا مهاتسن كورمك إلا بأنا ذا صاحة ذا يفرق فرديا يقولها شعبك ولا بقول لا بيتوبن إلا بان إلا بان دي مجرو إلا بان كأموس مجرو لا بقول لا بيتوبن أنا أقبل كو أضيسي وأنا أنصح سدا درادة دستوري وأنصح ما شاء الله آدة مع سنتهين waxaan siinaynaa guddigan u yeeraynaa hal la dulqaato wax yar hal isu dulqaato aad iyo aad u mahadsantihiin guddiga waxaan rabnaa inay ku soo dhawaadaan maadaama shaqadii ay ummadda Soomaaliyeed u soo qabteen golahoodii midalayna la aqbalay in maartay macdalin iyo wixii kale soo jeedinayay ku soo dhawaada dawladda waddanka Sacuudiguna waxa ay awaamir cusub ka soo saartay dadka sanadda 2024 u cumraysanaya xaramka barakeysan Cabdiraxmaan Saciid Boqorra ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi dawladda Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday in la xadiday in wax ka badan hal mar la guto cumrada sanadkiiba talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada looga hortagayo ciriiriga inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa intaa ku dartay in shakhsiyaadka hadda loo ogolaan doono oo kaliya in ay hal mar gutaan cumrada inta lagu guda jiro bisha Ramadaan si ay gacan uga geystaan maareynta dadka isu soo baxaya masjidka xaramka ee Makka
hindisaha wasaaraddu waxa uu iigsanayaa in la yareeyo saxmadda, in la hubiyo in dadka oo dhan ay si siman u guteen cumrada iyo in si hufan loo maareeyo xilliyada ay dadka ugu badan isku soo baxayaan si loo dhaqan geliyo siyaasadan. Mareegta Nusuk oo ah bartad elektaroonigada ah ee dowladda Sacuudi Carabiya ay ugu talagashay nidaamka cumrada ayaa soo bandhigi doona fariimo diidmo ah isticmaalayaasha isu daya inay codsadaan ogolaanshaha cumrada labaad. Fariintan ayaa cadaynaysa in gudashada cumrada oo sidoo kale loo yaqaano xajka yar aan la ogolayn wax ka badan hal mar inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, si dadka kale ugu suura gasho in ay ka qayb qaataan oo ay iyaguna gutaan acmaasha barakaysan ee bishan. Muddooyinkii u dambeysay dalka Sacuudi Carabiya ayaa soo bandhigayay agabyo kala duwan oo loogu talagalay dadka muslimiinta ah ee ajaanibka ah oo doonaya inay cumrada ku soo gutaan dalkaasi. Shakhsiyaadka sita noocyada kala duwan ee fiisaha oo ay ku jiraan socdaallada shakhsi ahaan, booqasho iyo weliba fiisaha dalxiiska, waxaa loo ogol yahay inay soo gutaan cumrada oo ay booqdaan Rawda al-Shariif oo ah meesha uu ku yaalo qabriga Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, jidka nabiga ee magaalada Madiina, kadib markay qabsadaan ballan elektaroonika ah. Intaa waxaa dheer, muddada fiisaha cumrada ayaa laga dhigay 30 maalmood ilaa 90 maalmood si xujaydu muddo dheer ugu sugnaan karaan dalkaasi. dowladda waddanka Ruushkuna waxay cod diidmada qayaxana ku diiday cunaqabateyn lagu kordhin lahaa Kuuriyada Waqooyi, taasi oo ka timi qaramada midoobay. Cabdiraxmaan Saciid Boqor ayaa mar kale inoo faahfaahinaya. Dowladda Ruushka ayaa soo afjaray guddiga qaramada midoobay oo u qaabilsan cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi. Guddigan ayaa toddobaadkii hore sheegay inay baarayaan in Ruushku uu jabiyay qaanuunka iyagoo uu hub ka soo iibsaday Kuuriyada Waqooyi sida gantaalaha meelaha fog gaara si ay ugu adeegsadaan dagaalka ka socda dalka Ukraine. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabateyn saaray Pyongyang ilaa sanadkii 2006 barnaamijkeeda nukliyeerka. Codayntii golaha ammaanka ee Khamiistii, Ruushka ayaa diidmada veto u adeegsaday si ay u joojiyaan in dib loo cusboonaysiiyo cunaqabateynta, iyadoo 13 kale oo golaha ay u codeeyeen marka laga reebo Shiinaha oo aad ay isugu dhow yihiin Pyongyang, kaasi oo ka aamusay. Mareykanka, Ingiriiska, Kuuriyada Koonfureed iyo weliba isbahaysiga reer galbeedka ayaa dhaleecay diidmada Ruushka. Waa markii ugu horeysay ee Ruushka ay hor istaagaan guddigan, kaasi oo sanad kasta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cusboonaysiiyaan muddo 14 sano. waa tahay daawadayaal, waxaa kale oo aan warbixin idinka diyaarinay mid ka mid ah horjoogayaasha dableyda hubeysan ee waddankaasi ka howlgala Haiti ayaa isagu waxa uu sheegay inuu ka fiirsan doono inuu hubka dhigo iyo sidoo kale inuu sii dagaalamo. wariyahayaga Fihime Ibraahin ayaa warbixin amurta ku saabsan inoo diyaarisay. mid ka mid ah hogaamiyayaasha kooxaha burcadka ugu awoodda badan ee Haiti ayaa sheegay inuu ka fiirsan doono inuu hubka ka dhigo haddii kooxaha hubeysan loo ogolaado inay ka qayb qaataan wadahadallada lagu dhisayo dowladda cusub. kooxo uu hogaamiyo Jimmy oo sidoo kale loo yaqaano Berkos ayaa gacanta ku haya inta badan caasimadda, waxa uuna saadaaliyay in rabshadaha ka socda Haiti toddobaadyadii lasoo dhaafay ay sii kordhi karaan maalmaha soo socda. si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay Sky News, waxaan diyaar u nahay xalalka Haiti oo ah waddan sabool ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 12 milyan oo qof ayaa ra'iisul wasaare la'aan ahayd tan iyo 12 Maarso. Ariel Henry ayaa xilka iska casilay kadib markii ay sortaa ku sameeyeen kooxaha hubeysan oo ka soo laaban lahaa dalka Kenya, halkaasi oo uu ku saxiixay in ciidamo nabad ilaalin oo military ah dalka la keeno si sharciga kala dambeynta loo soo celiyo. daawadayaal, qodobkaasi waxa uu guniya gabagabo u ahaa war wixii naga soo gaadhay guud ahaan caalamka iyo dhulka Soomaalida habeennimadani caawa. warkan waxaa idila socodsiinaya anigu Cabdiraxmaan Axmed Ormaala, aniga iyo dhammaan bahda Shakaal TV waxaan isku dhaafeynaa Ramadaan Kariim.